munaasabadan oo ahayd mid lagu daahfuriyay masjid cusub oo ay yeelanayso safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Kenya ayaa lagu qabtay gudaha safaaradda waxaana munaasabadan daahfurka ka soo qayb galay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Danjile Jibril Ibrahim Abdulle xildhibaanka Kamakuji xildhibaan Yuusuf ganacsatada Islii oo ugu horeeyaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada Islii culimaaddin iyo marti sharaf kale waxaana safaaradda masjidkan ka hirgeliyay Suldaan Xuseen Xaaji oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee waddanka Kenya isagoona kaashanaya guddiga ganacsatada iyo safaaradda waxaana goobta lagu daafuriyay masjidkan ka hadlay qaar ka tirsan guddiga ganacsatada Islii iyo Suldaan Xuseen Xaaji xildhibaan Yuusuf iyo sidoo kale Danjile Jibril Ibrahim Abdulle safiir badanna waan soo maray laakiin safiir oo Jibril oo kaleeto nagu soo dhawaaday oo bulshada Soomaali ku soo dhawaaday oo nidaam dawlad ku shaqeeyo nama soo marin marka inaan gacan siino hadaan nahay Islii business community oo diyaar u nahay runtii wax la maalgeliyo waxa ugu wanaagsan beedka Ilaahay sida uu sheekhu noo sheegay waana amal khayri ah marka insha Allah taala anaga dhan inaan ku dhiirano meelaha ay baahidan oo kale ka jirta inaan ka dhisno waxyaabaha ay u baahan yihiin isbitaal ha noqoto beedka Ilaahay ha noqoto iyo waxyaabaha kale ummadda u baahan yihiin waxaan rabaa inaan si gaar ah meeshan uga mahadceliyo ambassador Jibril oo markasta taagan marka waxaan u mahadcelinayaa on ka bilaabaya qofkii maalgeliyay Suldaan Xuseen oo isagoo madallada ama umbrellada Islii Business District Association kamida hirgeliyay ayaan marka hore u mahadcelinayaa wax weyn buu hormarsaday ninkaas gurigan oo wanaagsan oo hadda loo dhisay Ilaahay hantidii uu siiyay ayuu ugu dhawaaday asaga iyo caruurtiisa waxaan leeyahay Ilaahay idin barakeeyo warnimo tan aan dhaqaaleysano macna badan ku dhex jira systemkan meesha u soo maray anoo dhisanaay anoo garanaay Islii community in ay Soomaaliya fahamto macna ay ku fadhiday ahayd ambassadorkana calankii wuxuu wataa madaxweynuhu wataa Soomaaliya calanka nin wasiir ma wadan karo marka isku xirnaanta yani aad ay u fiican tahay waxa kale naga dhacay safaaraddan hadda anaga wada shanta Soomaaliya wada leh kaasa wuxuu xusayaa Xaaji Xuseen Suldaanka iyo caruurtiisa qaybta ay ka qaateen dhismaha masaajidka oo noo suurtagelisay anagoo dhanba maanta inaan isugu nimaadno oo aan ka qayb galno furitaanka runtii qarannimadu way qiimo badan tahay dawladnimadu way qiimo badan tahay wax ka qiimo badan baynaanay jirin baan u malayn marka Ilaahay anagu nasiib wanaag wuxuu nasiiyay qaran iyo dawlad aan Islii business community gaar ahaan adeerkay Suldaan Xuseen iyo caruurtiisa oo xaqiiqdii si hoos ila shaqeeyay waa run fakarka bishii May u maleynaa ay timid ka bacdi 2 bilood 3 bilood naga qaadatay bishii Agosto 7-koodii ayaa la dhagax dhigay markii la dhagax dhigay masaajidka waa masaajidku ugu yaraa tirada maalintii markii lagu daro laga saaro Sabti Axad shanta maalin soo harta dadka safaaradda danaha u yimaado waa 120 marka qaar 200 ay gaaraan marka waa ka yirihiin marka waa qiyaas kartaa 200 oo Soomaali ah oo Muslim ah oo ay ku jiraan shaqaalaha safaaradda markii la yiraahdo wufuudka loo imaanaysa ay noqoto dhamaantood waxay raadinayaan meel ay ku dukadaan helaan ay ku dukadaan ay marti noo timaado guudahan safaaradda timaado marka muhiim u ahaa masaajid yara gadaal noogu yeelay waliba ku yaalo oo Islii business community ganacsatada Soomaaliyeed dhiseen masaajidka laftigiisu fiican yahay laakiin tirada aad u yar tahay dad badan ma qaado markii la galaano gudaha waa dib badan tahay marka waxaan niri in dhismaha masaajidka nagala caawiyo xaqiiqdii hadalkii ama talaabtii ugu horeysay oo ay qaadeen Islii business community wuxuu ahaa in naga aqbaleen naga ajiibeen kadibna alxamdulillah suldaanka qaatay iyo caruurtiisa inay nala bilaabaan marka quruxda ka muuqato masaajidkaas waxay ahayd waqti la geliyay albaabka la bedelay albaabka meesha ka dhisan sharaxaad leeyahay kama siin wala soo xoqay wala soo sameeyay waxa la yiraahdaa alaabta lagu dukanayo mataqaana oo kaarbitka ah ma mid qaasaan rabnaa dhowr nooc laga soo fikirka ugu qaalisan hal keeno suldaanka yiri in wax kasto la sameeyay masaajidkan wuxuu dhisayay gurigiisa wax ka sii mahamsan xaqiiqda aad uga mahadcelinaya Sayid Ali Cabdi Maxamed Shabelle TV magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya.